qaabka labadaada ilkood ee hore ayaa qeexi kara shakhsiyadaada. Ilkahaaga qaab dhismeedkooda ayaa wax ka sheegi kara dabeecadahaaga iyo habka aad u dhaqanto. Haddii labadaada ilkood ee hore ay yihiin kuwa toosan ama kuwa qaloocan, waxay qeexi karaan dabeecadahaaga, waxayna si weyn gacan uga geysanayaan muuqaalka guud ee dhoola cadeyntaada. Khubarada cilmi nafsiga waxay baaritaan dheer ku sameeyeen si ay u ogaadaan xiriirka ka dhexeeya qaabka ilkahaaga iyo dabeecadaha shakhsiyadeed ee aad leedahay. Halkan ayaad maanta ku ogaan xiriirka ka dhexeeya qaabka ilkahaaga iyo dabeecadaha aad leedahay. Ugu horeen, fadlan saan u kala ogaano in muuqaalada noocan ah aan soo badinayno, fadlan tixgeli inaad like ku muujiso. Waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad inoogu like gareysaan muuqaalada aynu soo gelino. Haddaba aan u galno. Qaabka ilkaha waa 4 nooc. Aan ka bilowna ilkaha laba jibaaran. Dadka leh ilkaha laba jibaaran waxay jecel yihiin waxqabadka caadiga ah, waana dabeecadooda qabashada waxyaabaha fudud. Marka ay xanaaqaan, waxay awoodaan inay xakameeyaan dareenkooda. Sida awgeed waa kuwa degan oo xasiloon, waana kuwa hami sare leh. Waxay leeyihiin awood maamul, waana sababta ay ugu fiican yihiin go'aan qaadashada. Ilkaha saddex geesoodka ah. Dadka leh ilkaha saddex geesoodka ah waa kuwa taxadar badan, waxayna nolosha ka eegaan dhan waliba, waxayna u muuqdaan kuwa caqli badan. Marka ay wax ku dhacaan, waxay ogaadaan dariiqooyin u gaar ah oo ay kaga soo baxaan duruufaha adag. Ilkaha qaabka ukunta u samaysan. Dadka leh ilkaha noocan ah waa kuwa jecel farshaxanka, waana kuwa waxyaabaha casriga ah aad u xiiseeya. Wax kasta oo ay sameynayaan waxay u sameeyaan qaab aad u qurux badan. Dabeecad ahaan waa kuwa xishood badan, laakiin aad ay u habaysan yihiin. Dadkani waa kuwa xasaasi u ah dabeecadda, sidaas darteed waxay si fudud ugu dhaawacmayaan dareen ahaan markii loo eego. Ilkaha rectangle-ka ama laydhiga. Dadka leh ilkaha noocan ah waa kuwa caqli badan. Marka la siiyo xulasho dhowr ah, waxay dooran karaan midka ugu fiican. Aad ayna ugu fiican yihiin isgaarsiinta. Wada hadalkooda oo fiican awgeed, waxay hadalkooda si fudud ugu qancin karaan dadka kale. Waa kuwa waxtar badan, waana kuwa dareemaha dadka kale ilaaliya. Ugu dambeyn, haddii aad xiisayso inaan soo badino muuqaalada noocan ah, like saar. Mahadsanid.